afayeenka al-shabaab ayaa la sheegay in lagu dhaawacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Cali Suxayfa ayaa warkan inoo faahfaahinaya. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in afayeenka al-shabaab Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere uu ku dhaawacmay howlgal dhawaan ka dhacay deegaanka Shaam oo hoostaga degmada Awdhiile ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana howlgalkan fuliyay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. dhaawaca Cali Dheere afayeenka al-shabaab ayaa mid culus waxaana lagu hayaa deegaano hoos yimaada degmada Kuntuwaari ee gobolka Shabeellaha Hoose sida idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya. ila madax bannaan ayaa KN u sheegay in weerarkaas sidoo kale lagu dilay 15 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab mana jiraan faahfaahin intaasi ka dheer oo laga helayo weerarkaasi. maalmihii ugu dambeeyay ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo waxay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo deegaano badan ay kala wareegeen al-shabaab. ciidamada militariga ayaa la soo warinaya in deegaano horle oo ka tirsan degmada Awdhigle ay haatan dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan isla markaana ujeedkoodu yahay in deegaano badan al-shabaab ay ka saaraan. ma jiraan ilaa hadda wax war oo ka soo baxay al-shabaab kaasi oo ku aadan inay kaga hadlaan dhaawaca la sheegay afayeenka al-shabaab